oday geed ka jilcay baa beri gabadh yar guursaday gabadhuna gabadh yar oo 18 jir ahayd habeen dheel markuu hawsha bilaay wax go'oon waan soo qaboojiyay bahalkan ma diibad biyaha qabow halka u sii dhig marka waa lagu qaboojinay habeen dheel wax ku yaa waan soo qaboojiyay dadna tiyaradna run bay moodaa habeenkii daba iyadoo jimcad tahay baa biyaba la waa oo reerkii oon noqday toona wax maqlaysaa annaga midhkaa naga soo qaboojinay soo daa waxaad meesha ku hayso odayga gabdho adeer meena dhibataa doonaysaa meel magtaada la qaataa oday 7 jira baa bari masaajid tagay dadna wuxuu maqlay sheekhi wuxuu ka maqlay khudbadii intuu dhageystay xilli kastoo saantaada la ciyaarto hal gaal baa dishay dad laba jeer la ciyaarto laba gaal baa dishay dabadeedna saasaad jannada ku galaysaa haddaad habeen dheel gaal ka disho odaygu wuxuu siyaa jannada gashi intuu hadhuur iyo qabanti soo baxaysta bislaantiisu iyo markaas suuqiyo wax maqlaysaa saasaa jirta in habeenkii inta haddaan galo intaasoo gaal baan dilay jannada hore ka galay awalba waan ogaabay tiri anigu in hawshani jannada lagu galay wad odaygi ba haafka hore ciyaarta si wacan u galay haaf labaadkii buu haddana galay mar saddexaadkii iska seexdo odaygi intuu naqas ku dhagay isagoo iska seexdo isduduubay ay ku tiwaariya taana u keento war toosniyo gaalada inta hadhaaynu leynayso gaala hadhay tonagi mar saddexaad mar afraadkii bay tiri carra dibadda u qayli waa reeriyo dhan butoosay markaas ay ku tiwaar maxaad la qaynaysaa sida gaaladan cid nala leysa u doonana waxaan maqli jiray dumarka Soomaalidu ninkii wax haystay wax ugu daraan habeenkaad guursato 10 naagood oo meelay ka yimaadeen aadan garanayn oo aadan weliga arag balaabtiisa ku ganay Allah walaalo miyaad guursatay Allah wala hadda inta iska bulataay wax laabta ku ganay yarkimeys wax kula soo hadlay yarkimeys gabadha magaalada ku cusbay waa istaqaanana wada sheegasta magaalada ay timi habeenkii oo dhan baa garaacday haddana markaad garaacday gabadha magaalada ku cusub tahay waa dadka lala gaadho waa haddana garaacday aakhirkiiba la markaa qabatay maxaad samayn lahayd intaas haday lamarka markaa qabato waxaan ku oran lahaa dawlada lamarka maxaad iga qaban weyday dabadna soo kaxayn lahaa xaafadaydan meelkiin la hablaan oran lahaa in la saxatay habeenka aroortina gaari baan saarin dad badan oo ina daawanaya ayaa marka garaacista maqleen yaa xumaan ba dhigooda ka buuxdo tanax dawada iska dhirigay waar iska dhirigtay ma jirto saddexda nin ee aanay dumarku waxba ka haysan karin Yeah, come look at this. saddexda nin ee dumarku waxba ka hayn karin yes waxa kamid ah darawalka sabab darawalku gaari buu wataayo mar walba gaarigaas ma isla geeliyaan dadna gaari baa lagu wada jiray haye ka ku xigana waxa weeye ninka askariga oo naagtu haday askari aragto gabigeedu waxay moodaysaa inuu jannadii geenayo iska dabarto yes salaamta soo waa run ka ku xiga Yeah, come look at this. ka ku xiga waxaan u maleynayaa inuu yahay doctorka sabab waa doctorku mar walba islaanta duraya islaantaadi isagoo la socdo adoo la socdo ku oranaya ka had qolka waadka la geliyay dabadeer badan buu saa ku oranaya dhaq way gudaysay ya salaam marka doctorku saddex gabdhood ma aragtaan tamarada cad wallaahi billaahi been bad moodaysan habeen dhawood intaan gaari ku qaaday baan wariya saddexda hawlood dhiman tamarada cad waliba tamarada cad le waa iska hub waa iyada laftigeeda way tamarada cad way ma iyada qudheeda iyada way warwa walaasheen iyo biraxlaaq wata ma tamarada madow sidii gacdaan ku sheegay tamarada madow way aade adiga raalaada tamarada madow wariya saxibina isku soo maqnay ma moodayna sidii weliba xafada yaqaan ma waxa ma wallahi ma kaaga jaray adigu